بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وعاول محمود يوسف. إن شاء الله يوتيوب كتاونا سنة وعاول محمود. topic in مانها إنه حولنا وحوي how to create a progress bar أما splash screen سيدا تقانا با ووحا يري مركا project سنة سنة سو loading أي الله يقانا مركا هذه بور project هورتي سايو كسو كعاه ساتكو أركتين project يدا إيو حيالها آبسكا إن شاء الله قف هدو راعو فيديو كان وحان رجينيا إنو سمين دونو وحان سمينو وانا waxay roki ku simple sana ugu fududa ayaan soo diyaariyay steps ko English iyo source support insha Allah inaan halkan soo dhigo ayaan ku dadaali doonaa marka hore waxaad soo abuuranaysaa start new Java project marka hore waxaad samaysanaysaa step 1ka inaad soo samaysato project waxaan maanayaa habka project loo sameeyo in qof kasta iska fahmiyo simple iska tahay halkan banaan ayaad oranaysaa new project waxa weeye project Java application ay doonaysaa magac ayaad ula bixi doontaa marka aad next tiraahdo finish umbadanaysaa sida ayaan ku samaysanaysaa sidoo kale option labaad ayaa meesha ku yaala oo ah qofkii project samaystay horey projectkiisa ugu samaysnaa doonaya inuu splash screen ku darsado isagana fursadan waa halkaas uu ka soo raaci doonaa oo isagana meesha uu taabanaya waxa weeye JFrame ayuu samaysan doonaa qofkaas isagu stepka hore uu ka soo boodaya oo new JFrame boodnaya with JProgress bar tuuna ku qoran karaa wuxuu ku qoran karaa magaca uu isagu jecel yahay wuxuu ku qoran karaa splash screen step 3 muxuu noqon doonaa step 3 waxa weeye code kan in main classka project ka dhigno ama classka aynu samayn doono insha Allah taala halka aynu isagana geyn doonaa class iyo JFrame iyagana isku meel baa laga samaystaa labadaba waynu arki doonaa aynu u samayno hadaba si direct insha Allah marka uu ku soo kaco project-kaagii aad sidan oo kale project-kaagii u samaysato inagu project-kan ayaamahan ba wadnay wuxuu ahaa project-kan oo aynu horey u soo samaynay main page iyo waxaynu soo samaynay teacher iyo waxaan soo sameynay report-kii marka qofkan intaan soo sameeyna wuxuu daawan karaa insha Allah taala fiidiyoyada hore intaan markaan ka soo gudbo waxaynu ugu xigi doonaa inaynu hadda halkan ku abuurano user ayaynu abuuran doonaa waxaynu sidoo kale abuuran doonaa JFrame marka project-ka waxa fiican hadii goran isku meel ku jiro oo inaadan qaarna source package geyn qaarna aadan korka sar geyn qaarna aadan testing geyn qaarna aadan library geyn wuxuba ay ku joogaan hal meel oo formkaagu markaas si fiican bay isula shaqeynayaan halkan inta tagayna waxaan leenahay school management system inuu hadda haysanaa waxaanu leenahay new JFrame marka Java class waynu dooran doonaa kan weeye class-kan ku sheegaya JFrame kan weeye marka labada way samaysan doonaa kan waxaan ku soo bandhigi doonaa loading iyo progress bar-ki iyo maartay text-ki kan waxaan ku soo bandhigi doonaa code marka habka ay soo shaqeynayaan iyo waxaan ku qoranayno insha Allah halkan ku guda galaynaa Java class ayaynu hadda sameynaa class-keena waxaynu u bixin doonaa progress baynu u bixinaynaa si aynu isla jaan qaadno progress ayaynu u bixinaynaa marka progress markasta oo progress la rangareeyo waxa soo kici doona formkii iyadana si doona hadda sameeyno marka haddii splash screen dhahana waynu sameyn karnaa splash screen hadayna in qaabkaas oo kale u sameeyno waynu sameyn karnaa inaynu sameeyno progress waynu ku qoran karnaa waxa la wixii aad ku garan kartaa adigu class-kaaga hadhow waad ku qoran kartaa progress inaynu saa u qorano aan dhahana finish marka hadda waxaan sameynay waa class-kii way halkan uu soo geli doonaa progress ayaan ugu qoran waa kan soo jeedo coding-kiisa halkan ayaan ka bilaabi doonaa insha Allah taala waxaynu ugu xigay iyadana formkii ayaan soo create karsanaa markii class-ka samaysanay sen second raacaan labadaas formkeena waxaan u bixinaynaa progress bar-kii halkan jooga progress underscore bar kan raacayna haddaad underscore fidiso aad bar saa qortana ka bas qurux badan oo kuma dheeraan doono hadda qoritaankeedu meel badan aad gelin doonto waayahay formkeenu markuu sidaan noogu soo baxo formkaaga waa qurxinaysaa waa dhisaysanaysaa adiga ayaana saad rabto ka dhiganaya haddaad rabto inaad maximize gareyso iyo haddaad rabto inuu in yaro kooban kugu soo kaco waxa weeye intaba adiga u door leh inaad qariso haddaad doonayso inaad qariso bottomska sare oo kale waxaad ka dhigaysaa resizable kana ka qaadaysaa uncoded baa ka dhigaysaa si uu form ballaaran oo qurux badan kugu noqdo layout halkan ayaad ka bedbedelaysaa waxaad ka dooranaysaa marba ku qanciya ama saddexdo adiga kaas kugu soo baxaya waxaynu ku soo dari doonaa oo kale textiyadana si aynu ugu soo daraynaa waxaynu ku soo daraynaa horta progress bar wax la yiraahdo progress bar kuuna kugu jira halkan ayaad isagana ka xulan doontaa insha Allah taala progress bar waa line kan yar soo qaadaysaa waad dhigaysaa marka adiga ayaana qurxinaya oo hagaajisanaya waxaaga oo inta aad doonayso iyo nidaamka aad u doonayso ka dhiganaya taas waxay ku xiran tahay qofka wuxuu isagu la qurux badnaada
waxaad soo qaadanaysaa level badan baa halkan uga baahannahay. Level baynu soo qaadanaa. Levelkan waxaad ku qoran kartaa halkan sare oo kale ayaad dhigi kartaa. Waxaad oran kartaa wuxuu projectgaagu yahay baad ku bixin kartaa. Welcome all management system. waayahay waad qurxisan kartaa, waad balbalaarin kartaa, adiga ayaa ku ciyaari doona insha allahu tacaala sida aad rabtana ka dhigan doona iyo sida kula qurux badan iyo sida aad jeceshahay. farta ayaad halkan ka bedelan kartaa, waxaad doonaysa ayaad dooran kartaa, sizekeeda ayaad intaa doonto weyneyn kartaa. waxa weeye aad baynu waaweynayna malaha, waa in waxaagu ay ku nidaamsanaadaan oo wax qurux badan oo dadka indhahooda soo jiita aad u samayso. hadda sidan waxaan time consuming-kan ilaalinaya inaan time badan lumino, marka inaan dedejinaa laga yaabaa, laakiin adiga waxaa lagaa rabaa inaad wax qurux badan aad soo saarto oo isku toosan. waa tahay haddii saas oo kale dhibco kaa noqoto waxa weye textiga qayb baa qarsoomaysa, waa inaad kor uga yara qaado. haddii halka magacaagaad ku qoranaysaa, developed by hebel baad ku qoranaysaa, waxa marba kula qurux badnaada un baad ku qoranaysaa. halkaa waxaan inoogu xigayaa codinka intaynaan bilaabin level baynu soo qaadanayna. 2 level baynu baahano. level waxa weeye textigii loading baynu ku qoran doonaa. halkan oo kale ayaan dhigan doonaa, loading ayaan ku qoran doonaa. waxa uu sheegayaa waayahay dhibco yar baad ka raacin kartaa. mid kalena waxaan ku qoran doonaa tiradii oo 100 over inay gaadho aynu rabno. tiradana adiga ayaa u dooranaya meeshaad dhigayso, meesha kugula qurux badan. haddaad halkaas oo kale dhex dhigayso, haddaad koonahan kale dhigayso, waxa weeye adiga ayay kugu xidhan tahay. iyadana waxay ku xidhan tahay qofku waxa uu sameynaya. 100 iyo percentage baad iyadana aad ka dhigi doontaa 100%. iyagana waxaa laga rabaa inay waxaagu isu wada ekaadaan oo had iyo goor environment-iga aad ku shaqaynayso inaad hal wax u wada doorato oo maaragtay Times New Roman ama Tahoma ama aad mid aad wax isku wada mid oo qurux badan aad samaysato. waxa weeye taasina waxay kaa caawinaysaa in projectkaagu ahaado project waxa weeye dhammaystiran. haddaad 10 kalar soo kala qaadato oo midba nooc yahay, waxa weeye waxaa ka qurux badan adigoo waxaaga hal standard u dejista isla markaana kaa ku dhaqma. marka waa tahay hadda laynankeeni iyo waxayna waynoo dhammaystiran yihiin, magacyadu waynu ku qoranay. waxa inoo hadhay waa inaynu codingkii bilowno. marka codingka halkan ayaan ka bilaabaynaa iyadana insha allah. waxaynu ka bilaabaynaa classkeena dhexdiisa. classkeena ayaan ku qoran doonaa codeka. waa layman yar oo fudud insha allah. waxaan rajeynayaa qof kasta inuu uu samayn karo oo uu mari karo. intaan oo kale waad u baahan tahay iyadana. public static waad u baahan doontaa for mainkan ilaa stringgiisa argumentskiisa, waayo waa habka ay isula shaqaynayaan classkaaga iyo maaragtay aad meeshaad uga soo sheegaysa weeye inay labadan isla shaqayn doonaan. marka kan ayaad halkan soo dhigan doontaa adigoo hoos dhigaya argumentskaaga ama maaragtay progresskaaga meesha uu ka furmi doono. halka ayaad koodhkaaga ku basti garayn doontaa. kan oo kale waad iska saari kartaa. waa tahay public static void main in habkan oo kale aynu qoran doonaa. waxaynu ugu xigaya waxa weeye in koodhkeena aan qorano. koodhkeena waxaynu ka dhigaynaa halkan. koodhka waad u kala sheegi kartaa, waxaad ku qori kartaa wax kasta oo adigu marka aad ku garan kartaa ama committee ku darsan kartaa. marka progress ayaan qoraynaa halkan. progress waxaan rabnaa kan inuu soo kiciyo baynu rabnaa. waxaan rabnaa kan marka uu dareemo marka la rangareeyo inuu progress bar ma soo boodo. marka progress bar habka inoogu qornayd baynu qoraynaa. progress bar waxaan leenahay progress bar markaan dhahno declarationkeena how baynu ka dhiganaynaa equal new. waayahay isla isagii baynu yeedhanaa. isagaa loo yeedhaya progress bar. kan waa ka homeka inuu inagu celiyo. hadii goor haddii uu saas oo kale error kugu soo saaro waxaad qabanaysaa control iyo space. lineka dheer ee computerkaaga iyo control baad isla qabanaysaa.
marka wuxuu ku siinayaa hints iyo maaragtay inuu isagu kuu sheego waxa kaa khaldan wuxuu ku leeyahay waa kan imported items press control space again for all items marka isaga ayaa taabanaysaa uu kuu saxmaya good semicolon ayaana hadii goor meel kasta aad u dambaysiin doontaa aad kusoo xidhi doontaa marka waxaan u sheegaynaa inuu feasiblekiisuna true ahaado waxay leenahay hogow dot sorry leenahay set feasible true halkan iyadana waxaad kusoo qaadan kartaa feasible fooleen baa halkan geliya expression true way inoo gashay waa saxdii weeye intaan oo kale ayaad gelinaysaa haddii aad gacantaada ku qorato iyo haddii aad automate garayso labada waad samayn kartaa try ka jabbayna haddana furaynaa waayahay waxaan leenahay try try waxay kaga baahan tahay inaad xagga dambe ugu sheegto exceptionka waxyaalaha laga soo reebayo oo catch exception ayaad xagga dambe ka odhan doonaa insha allahu tacaala waayahay try waxaan leenahay for inti halkan waa meesha ku declare garaynano inaynu declare garayno waxaan doonayno inay dhacaan zero buu ka bilaabanayaa egas xagee aadaysaa markaa egas ilaa ay gaadho 100 bay leenahay equal or greater than ilaa ay less than or equal ay noqoto or equal 100 waayahay egas plus marka egas tii waa inaad kordhisaa intaas oo dhan oo ay mar walba korodhaa ayaan leenahay halkan waxaan gelin doonaa zero naga baxo another bracket good way halkan markay marayno waxay noo dhiman inaynu halkan waxaan ka furan doonaa try aan ka jabkeeni waxaan leenahay markaa treat left saas ugu qoranaysaa treat waa t h r e a d treat markaa tiraahdo dot sleep markuu halkaa maraya waa inuu seexdaa ama uu dib u laabtaa 50 baynu ka dhiganaynaa halkaana waayahay halkan waa laynagu haystaa 50ga exceptionkii way naga rabaa dib mal ayadana aan ku darsan doonaa aynu recordkeena dhamaystirano waayo waxaan leenahay progress bar haddana soo banu yeedhinaa progress bar welcome progress bar waxaan leenahay waa inaan usoo assign karaynaa magac marka labelskiga halkan aadaysaa progress barka labelski maadaama aaday waa inaan magac usoo declare karaynaa lba ga aynu doonayno inuu loading sameeyo kaas ayaa halkan ugu sheegaynaa waayahay formkeenu design kan weeyaan marka waxaynu u design garaynaynaa lbl baynu odhanaynaa loading lbl loading haddaynu dhahno waa okay lbl intaan ayaan ka dhiganayna marka kan ayaan koobiyeysanayna okay ayaan saa ku leenahay waxaynu ka rabnaa waxa weeyaan inuu isagu marka aynu taabano uu aado halkaa ama uu tirada fiiriyo okay waxaan leenahay lbl waxaan filayaa weli inaan assign garayn waa inuu variable meesha ka haysaa lbl log waayahay lbl load markaan u declare karayno set text inaan textiga u sheegno weeyaan set textigana waxaan ka dhiganaynaa string insha allahu tacaala iyadana waxaan odhanaynaa inuu integer baynu ka dhiganaa inuu integer inoo aado integer waayahay good integer wuu inoo aaday to string waayahay meeshuu aadayana waa egas baynu dib ugu celinaynaa waxaynu ku daraynaa inuu tirada geliyo marka meeshan tirada uga sheegaynaan infinity waxaa muhiim inaad infinity geliso iyo quotation iyaduna aad bay muhiim tahay marka infinity ayaynu geli doonaa bracketkina waynu soo xiri doonaa waayahay maxay naga khaldan private access ayaa haystaa ayaynu leeyahay
صح لنا iyagana insha Allah taala waayahay waxaan u yeeraynaa waxaan u yeeraynaa haddana ka labaad ayaan u yeeraynaa oo ah isaguna load bar isagana waa inaad usoo assign garaysaa intaadan u yeerin waxaa muhiim ah inaad u assign garayso marka kan ayaan u assign garaynaynaa load bar waa kan ordi doona hadhow kaas ayaa ordi doona laakiin kan waa ka tegastiguna ugu qoranta marka waxaan leenahay load bar lbl bayna u horeysa lbl load bar intaa ayaan ka dhiganaa iyadana load bar si aynu ugu kala garanno muhiimadu weeyaan isagana waxaynu halkan ku assign garan doonaa progress bar isagana waynu assign garanay set feasible in set value helo weeyaan lbl set value ayaynu ku haystaa set value inaan dhexno weeyaan value z value x z value x z value x danbanahay waa tahay still waxbaa lanagu haystaa labadan waynu sii dii doonaa insha Allah waayahay waxaan ku daraynaa haddaba inaan catch waynu sameynaynaa inaan catch ka qabto catch exception marka sheegnaa catch exception marka waxaynu ka dhigaynaa inuu exceptionka aado haddii aysan jirin intaasna waayahay waxaa inoo hadhay hadda progress barkani isagana lineka inaad duubto ama aad weyneyso adiga ayaa u door leh labada error iyagana waynu ka saaraynaa insha Allah taala waxa kale inoo hadhay waxay noqon karaan kuwan inaynu labadan inaynu isu soo assign garayno way rabaan marka xagga packageska way inooga assign garaysan yihiin local variable lbl table jlevel wuxuu ku yidhi lbl has private access in progress bar private access way haysaa marka inaan public ka dhigno weeyaan initiate components sorry waxaynaan modifier kaaba inaan ka dhigin inuu inoo noqdo waxa weeye markasta waa inuu ku ahaadaa property baad marka horeysa joogtaa property hadaad joogto modifier kaagu waa inuu ku ahaadaa ama variable kaagu waa inuu ku ahaadaa public halkan private ayay noo tahay marka public ayaan kasoo dhigaynaa saddexda dhibcood ee yararka horeeya ayaan taabanaynaa halkan ayaan waxaan ka xulanaynaa public weliba static baynu ka dhiganaa maadaama public static haysanay waxaan filayaa halkaas inuu inoo leeyahay private maadaama leeyahay waxaas private ku haystaa waa inaan private ka saarno waayahay good kan inooga baxay kan ayaa inoo hadhay marka kalena waa inaan sidoo kale kasoo dhignaa public maadaama aynu public static aynu ku declare garayno waayahay halkan isagana waxaan tegaynaa ka u dambeeya markaad property kusoo gasho property aad soo furto code baad tegaysaa qaybta codeka markaas sorry halkana waa private marka inay public aynu ka dhigno weeyaan si ay inoogu noqoto datadu mid public ah waan save garaynaynaa si errorku inooga wada baxo set value inoogu haysta value set value set value iyadana value bas waa inuu helaa value ama set value baynu ka dhiganaa iyadana set value x inuu x ka helo baynu rabnaa xogta so value
أنا وايد this وأنا مكسر من وشها تستري إكس وأنا صح أكيد هيدينا هذا خلنا اللودين باركا وإنه variable name هستا sorry halkaan ayaynu u baahnay inaan loading barka gelino xaggan ayaan gelinay marka kan ayaan kasoo bedelanaa intaan waa khalad meeshaan waa inaan u daynaa level intaan waan ka qaadanaa loadingka level u garba dhiganaa level uma ka dhiganaa simply kan wey kaan rabno inaan change variable namekiisa aynu isticmaalo kan ayaan isticmaalanaa marka kan ayaanu gashananaa load bar isaga ayaana load bar inoo ah kan waa loadingkii waa tahay aan ku noqono haddana errorkeenii halkaan inoogu soo celi load barkeenii still waa lana haystaa waa tahay aan sekreeyo waayo waxaynu leenahay kan ayaynu eegaynaa bal wuxuu ka haysto recordkana waa tahay private ayuu haystaa isagana public waa inaan ka dhigno public static ayaynu ka dhigno maadaama public static yihiin recordkeena waayahay hadda inuu sii daayay kan dambe ayaynu sorry waxaan ka tagnay bracket xagga yar u dambaysa hadduu error kaa haystana waa inay 3 bracket kugu dambayso ku celceli practice badan samee waxa weeye adiga ayay kugu xiran tahay marba koodhkaaga ku xigso oo isku beegbeeg waxaa ku yidhi spaceyo u dhexaysii taas waxay ka dhigan tahay inaad koodh qurux badan oo meesha error kaga jiro laga saari karo aad isticmaasho insha allah haddana tijaabadii ayaynu bilaabanaa marka faylkeena ayaynu kan garaynaynaa si aynu u ogaano bal in faylkan shaqaynayo iyo in kale waa tahay hadda koodhkeena inoo leeyahay laakiin waxaan filayaa waxaynu u baahanahay inaan kasoo rani karayno maadaama kan nal inaga ahaa inaynu ka dhigano nalkan kadibna previous aan ku ceshano sidoo kale waxaad kusoo darsan kartaa inaad panel aad kusoo darsato kalar qurux badan aad saarto iyo inaad waxaaga nidaamsato adiga ay kugu xidhan tahay imika waan rani garaynaynaa in wixii aynu soo sameyno shaqeynayaan bismillah boom waa yahay si qurux badan ayuu inagu socdaa loading kalaro qurux badan oo baad u samaysan doontaa adiga ayaa laga rabaa waxaaga inaad habaysato wax badan ka badbedesho aad ku practisto backgroundadiisa iyo designadiisa iyo xiisaba adiga ayaa laga rabaa inaad dejiso kalarada markaa isku soo baxayaan marba siday isugu soo baxayaan intaa doontaan ayaad ka filan kartaa color code iyo haddaad u baahan tahay inaad kalaro kale isticmaasho intaba waa isticmaali kartaa waxaynu sidoo kale rabnaa inuu daaqad oo dhan isku ballaariyo oo qofku loading bar hadi goor close button iyo waxaa maray waxaan rabaa inuu meel kasta uu kasoo xidhmo marka koor yar baynu qoranaynaa oo inaga caawiya in uu saa isu ballaariyo extended state saa kuu saarayaba marka waad dooranaysaa set extended state marka haddana waxaad qoraysaa maximized baynu ka dhiganaa inuu width iyo labada dhinac buu maaragtay u ballaadho
marka kana fahamsan waayta natiijada was maybe inay sax noqdaan tijaabino waxaa la rabaa inuu daaqad oo dhan isku ballaadhiyo error ayaa jira ayuu leeyahay markan error ereygan ayaan khaldaynaa maximize underscore waa muhiim isagana both maarna inuu green noqdo baan rabnaa si koodhka inuu sax yahay boom hadda waa marka intaan yar waxay kaa caawinaysaa inuu isku ballaadhiyo height iyo widthba marka height iyo inuu width isku ballaadhiyo waxay isu ballaadhinayaan daaqad oo dhan inuu qabsado baan rabaa oo qofku uu meelu ka baxo waayo because progress barku had iyo goor waxaa muhiima inuu in meel laga baxo la waayo boom waa kan linekan iyo maaragtay designinka iyo wax oo dhan adigaa laga rabaa inaad meerayso close button male daaqadii oo dhan wuu isku qabsaday waxa weeye qurux weeye markaas kale uu qabsaday daaqad oo dhan qofkuna meelu ka noqdo heli maayo markuu halkaas sii dhaafana waa inuu toos looginka ugu dhex geeyaa qofka iyadana waynu samayn doonaa sidaynu samaynayna waan arki doonaa waayahay waxaa inoo hadhay aynu intaa ku daraynaa inaynu projectkeena ku xidhno project baa inoo samaysnaa hore main menu lahaa login ku lahaa sida ujeedaan loginkeenii hore waa kan main pagekeeni sidan oo kale ahaa loginkeena akoorka kasoo qaadan karayna dad rabta inaadan waxba qorqorin oo aad automate gariso wax kasta oo samayn kartaa programmersku hadii kor way isticmaalaan inay koodhka iyo waxay qabaan ba ay koodka ku qaadaan si ay shaqadooda u gudaystaan laakiin waa inaad garan kartaa haddii error kugu yimaado haddii cillad kugu timaado waa inaad ka saari kartaa oo wixii aad maaragtay adigu aad design garayn karto waa inaad adigu aad maamuli karto koodhkan waxaan digaynaa inuu marka uu login part dhammaado uu inoo soo kaco set visible why not true inuu loginku inuu kaas true noqdo oo kaliya inuu bahanayo marka kan dhammaado maxaa dhacaya kan dhammaado 100 markuu gaadho maxaa dhacaya loginkaagana kasoo jeedi qofku waa inuusan meel lagu dhaafin kan inuu isxidhana waynu kasoo heli karnaa oo marka uu halka soo gaadho uu isxidho waynu ka dhigi karnaa inaynu daysanana waynu ka dhigin karnaa sidoo kale waxaan ka dhigi karnaa in main pagekiina uu soo kaco oo loginka kasoo horeeyo isaguna marka aynu halkan imaano adiga ayaa dhisan garasanaya waxaa caqli u sameynayo iyo habka aad doonayso kan haddaan rabno inuu iska tago intan ayaan soo qaadanaynaa waxaan leenahay hadiiba aad login aragto inaad meesha ka cabsataan halkan truga unba falsi u bedeleysaa ayadoo career baa lagu qoraa falsi marka tan waxay ka caawinaysaa inuu isxidho oo daaqada yar keliya joogto haddii splash screenkii daaqada isku balaarin wixii dhan way isxidhayaan bes waxaa kusoo haraya loginkii oo keliya kana uu kaa tegaya tijaabina boom waa kan loginka keliya kusoo haray loginka marka la galo usernamekeenii iyo passwordkeena xaggan kasoo eeganayna maybe waxaa kan xasuustano laakiin waxaan kasoo databaskeena kasoo eeganana dhib ma laha main pagekeena inuu tago haddana loginka marka la galo main pageka la tago in main pageka noo isbalaadhiyadana waan kusii xiri doonaa projectkaga adaa qurxisanaya adaa nidaaminaya adiga ayaa marba qofka dooh buu leeyahay haddeen rabno kan oo kale inaynu hadda aynu design garayno oo wax badan ka bedelo waynu samayn karnaa daaqadan oo kale aad baynu ballaarin karnaa midab baynu ku filin karnaa waxaan samayn karnaa inaynu kuwaan aynu isu keeno aynu kuwaan aynu isu keeno samayn karnaa oo aynu kuwaan dhan hidibsa ka soo qaadno oo halkaas aynu ballet kusoo darno
panel wuxuu ka caawinayaa kalara qurux badan iyo disaynadaada iyo waxaaga aad ablaableyso oo aad qaarba meel geyso marka waa kana welcome-ka kala dhiganaa saddex video waa isla qaaday si ay markaa kala aasooyin hal mar ay isla qaaday iyadana waa tahay iyagana intaad kala keenaysaa marka waa habka aad saari karto waxaa loo yaqaanaa maaragtay background waa habka aad background-ka u saaran karto adiga ayaa lagaa rabaa markaa background-daada iyo waxyaalaha aad jeceshahay iyo waxaas oo dhan inaad ka dhigato kuwana dib ayaan isaga celinanaa maadaama aynu soo raacin isagoo inaga doornayn sabkaa doorna lama rabo iyaga oo kor saaran keliya dooranaysaa kabacdina kor ayay kale kana intaa doonta ayay weyneyn kartaa sawir baad soo dhigi kartaa wax allaale wax rabtid ku samayn kartaa adiga ayaa laga rabaa inaad waxaan dhan edit garayso oo qaabayso waaya aan rangarayno maasha allah waa kan warmiyada xagga uqaasa waxaa fiican bartanka suukaa degaan loadingkaagu iyo waxaagiyo aad nidaamsato oo kalara qurux badan dhigato oo hadda kalarka waynu ka bedeli karnaa maadaama painel uu yaalo project ayaad leedahay kalar ayaad u furanaysaa ila kalarka noon baa u filnaa midabadan yara midab yara hurda ayaad ku dhigan doontaa midabada yara hurda waa fiican midab kale aad indhuhu miday dadku u dhibsanayaan oo kale inaad ka dhigto lama baahna midaan waxba laga arkin oo kalena lama baahna waa waxaa inay good aad midka si qurux badan soo baxayaan intaan yara daaqadan yara ka dhiman waynu ku daraynaa waayo waxa weeye kalarka ayaan gaadhin meeshan rabnay kalarka xaggan ayaad kor xaggan ayaad u weecinaysaa xagga ayaad jirtisaa kuwaana bartanka ayaad ku weecinaysaa waayahay welcome-kan xaggan adiga ayaa laga rabaa inaad qurxisato oo aad nacdo waayo markii halkaa marayno sidaan qurux badan noogu soo kacayaan meel laga noqdo male meel laga xidho male qofku waa inuu taa ugu dhex jiraa inta uu suga waa inuu sugaa inta hawshan socoto marka uu saa kugu soo boodo loginkaagii waxaan ku xijin karnaa waxa weeyaan inaynu kasoo dhigno active iyo marka project la rangareeyo haddii hadda project la rangareyno form kalaa soo kacaya laga yaabaa loginka ama mindiska oo soo kacaya sidaas uma samaysna waxaan sameynaynaa inaynu kusoo xidhno default page ama defaultiga ugu weyn mainka ah inaynu kusoo xidhno taas ayaan ka sameynaynaa waxaan leenahay progress ayaan leenahay progress ranka maxaa dhacaya main page-ka soo kacaya hadda waxaa soo kacaya progress bar marka progress bar waa formkii qaybta codeka ay rabnaa inaan horeyso marka progress kaliya ayaan main ka dhigaynaa progresska ayaa ugu soo kacaya waxaana kusoo xigaya markaa form waa codeka rangareystay waa kan formka inuu soo gooriyo boom ilaa uu ka dhamaadana ma dhamaanayo waa kana loadingkaaga intaad doonto salaalin kartaa qurxin kartaa disaynadaada hababkaaga adiga disan kara intaad doontaa dheereyn kartaa waxa weeye qof iyo siduu jecel yahay mid yaroo dhudhuban waynu tusnay dadka qofku waaweynka jecel oo kale uu nagu jiro waa kan ran uma leenahay project hadda halkan aad ka rangareynaysaa markiidaad ka rangareynaysaa hore uu kasoo boodaya good waa kan intaad doontaad markaa loading haddaad projectyo lagu sameeyey aragto intaa yara fudud weeyaan ma garanayo halkan waxaan ku galno username password waa khalad iyadana insha allah waxaan waxaan kasoo eegan doonaa databasekeena inoo sheegi doonto procedureka lagu gelayo markaana main pagekaynu qurxin doonaa waxyaala badan bay kusoo kordhin doonaa insha allah waan idinku dheeraya raalli ahaada caawa inahaas ayaan jeclaystay inaan saaxiibaday la sheer gareeyo wixii kale iyo tusaalaha iyo wixii cillad ku qabsada iyo waxba waxaad noogu soo diri kartaan qaybta committeega insha allah siina faafiya si uu u gaadho asxaab badan oo u baahan inay kusoo daraan projectyadooda iyo inay maaragtay qofkii jaafo bilaabay iyo kii nala bilaabaya haddaad casharadii hore daawan dib u noqo channelka ayay ku jiraan soo daawa casharada kale
إن شاء الله تعالى كور كان هل كان ينقص بارتكرين دونا ورقة أنا هل كدول كريسين دونتا ماشي الله يقانو description كان أي مكسو أي صورة دونا يوتيوب كنا marka insha allahu tacaala halkaa ayaad ku download doontaa haddii aad leedahay sidee baan descriptionka aan uga download garaystaa waynu ku tusaynaa insha allahu tacaala adigoo zero fudud ayaad uga dejisan kartaa descriptionka marka in videogu dheeraadana waan diidayaa youtube-kaaga markaad sidan u gasho waxaa kusoo dhici doonaa meel yar oo ay ku qoran tahay baad heli doontaa kanaalka ayaad markiiba booqanaysaa waxaana kusoo bixi doontaa markiiba isla markiiba immediately kusoo bixi doontaa meeshii aad ka xulan lahayd markaan aad ka xulanaysaa descriptionka ayaad xulanaysaa immediately halkan waad ujeedaa drive ayaa halkan hadda fayl yaalaa haddiiba aad halkan soo gaadhay insha allah waxaan rajeynayaa inaad wax badan isku qabsoomeen oo jeceshay inaad nabadii proceed garayso kan kale hadda waa cashar hore mar hore codka inuu select garayaan joojinayaa halkan descriptionku waa halkan yar linkigan ayaad taabanaysaa halkan kala soo deg source code-kii halkan source code-kii baa hadda yaala waa koodhadhkii aynu ku samaynay projectkeenii hore Java for beginners oo aan ku samaynay dhammaan form iyo maaragtay main page-ka iyo waxyaalahaas oo dhan marka haddii aad halkan taabato immediately waxaa kuu download filekan download ayaad odhanaysaa bas wuu kuu download garoobaya waana free wax uu kuydinayo male hore ayuu kaaga download garoobaya marka insha allah waa kana halkan ayaa source code ka helaysa marka saano kale ayaan soo gelin doonaa kana immediately insha allah markan videoga soo geliyo aad baad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulan dambe oo fisale insha allah iyo muuqaalo kuwan kasi xiisa badan muuqaalo badan ayaan rajeynayna inaan soo gelo insha allah the following weeks asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh